Bismillahirrahmanirrahiim waa Somali News. Maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa waa kuwii wadamada ugu halista badan iyo kuwa ugu nabdoon ee caalamka. Toddobaadkan waxaa la daabacay natiijooyinka tusmada nabadda ee caalamka. Warbixin ay soo saartay Maxadka Dhaqaalaha iyo Nabadda ayaa lagu sheegay wadamada adduunka ugu badan ama ugu nabadda badan iyo kuwa ugu liita ama kuwa ugu halista badan 2020 sanadkii dhamaaday. Jasiiradda Iceland ama wadanka Iceland waxaa loo aqoonsaday inay tahay wadanka ugu nabadda badan dunida, halka Afghanistan ay hogaaminayso liiska wadamada ugu hooseeya dhanka ammaanka amaba ugu liita uguna halista badan. Haddaba, guud ahaan celcelis heerka nabadda adduunka ayaa ka xumaaday markii sagaalaad ee muddo 12 sano ah. Dagaalada sokeeye oo si aad ah u kordhay tan iyo sanadkii 2011 ayaa ah qodobka ugu muhiimsan ee sababay colaadda sii kordhaysa. Haddaba, waxaa sidoo kale la qiyaasaa in faafitaanka COVID-19 uu saameyn ku yeelan doono xasilloonida siyaasadeed, xiriirka caalamiga ah, xuquuqda madaniga, iyo heerka rabshadaha mustaqbalka, iyada oo ay ugu wacan tahay saameynta dhaqaale oo lagu qiyaasay ama lagu qiyaaso in ay tahay tii ugu xumeyd tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Haddaba, kuwani waa 10 wadan ee ugu halista badan. Lambar 1 waxaa ku jira Afghanistan, lambar 2 Syria, 3 waa Ciraaq, 4 waa Suudaan, 5 Yemen, dalkeena Soomaaliya ayaa galay kaalinta 6, Liibiya, Democratic Republic of Congo, Central African Republic, iyo Russia ayaa kaalintan kusoo gashay si lama filaan ah, lamana oga sababta ay kusoo gashay. Hase yeeshee, cilmi baarista uu sameeyay maxadkaas ayuu kusoo galiyay. Sidoo kale waxaa ku lamaanan 10 wadan ee ugu nabdoon caalamka. Lambar 1 waxaa ku jira wadanka Iceland, New Zealand, Portugal, Australia, Denmark iyo Canada ayaa 5 iyo 6 kala galay. Kaalinta 7 Singapore oo ah runtii dal aynu ognahay taariikhdiisa si goonina aynu uga hadalnay. Dalka 8 waa Czech Republic, dalka 9 waa Japan, 10 waa Switzerland. Haddaba, dalka Mexico ayaa ku jira booska 137 waxayna gashay 3 meelood sanadkii la soo dhaafay, iyada oo nabadda ay xumaanayso 2%. Guud ahaan 81 dal ayaa ku fiicnaaday tirakoobyadooda, halka 80 ay ku sii dartay ama ay ka sii dartay xaaladooda. Waxaana indhayntan sameysay Maxadka Dhaqaalaha iyo Nabadda ee ka faallooda arrimaha ammaanka iyo dhaqaalaha. Intaas ayaynu kusoo gabagabayn doonaa.